khilaafaadka dowladda iyo mucaaradku waa arrin ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee dalalka ka dhaca gaar ahaan marka ay isqabtaan siyaasiyiinta layskuna hayo muranka doorashada ama sidoo kale khilaafaadka ku saabsan arrintaasi maamulka dalka. laakiin mararka qaarkood waxaa lagu kala duwan yahay hanaanka iyo sidoo kale xalka loo maro sidii loo heli lahaa waxyaabo sharci ah oo dadkuna heshiis ay ku yihiin, waxaana arrintaasi ay ka dhigan tahay marxaladaha iyo sidoo kale xaaladaha kala duwan. Soomaaliya teeramkii saddexaad waxay wajahaysaa xaalado iyo sidoo kale waxyaabo muujinaya in quus siyaasadeed laga taagan yahay xaaladaha guud ee jira, waxaana muuqata in dhinacyadu si weyn ay isugu diidan yihiin xaaladaha guud ee jira iyo sidii loo gaari lahaa arrimaha masiiriga ah ee doorashooyinka dalka. khilaafku marka uu sii xoogaysto waxa uu sababaa arrimo badan, taasi oo markaasi keenta in dalku uu galo xasarado siyaasadeed iyo dhibaatooyin xoogan, kuwaasi oo mararka qaarkood ay adag tahay in la xaliyo. xasilooni darada siyaasadeed waxa ay markaasi ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee saameynta ku yeesha hay'adaha dowliga, kuwaasi oo aan si caadi ah u shaqaynin. taasi waxay weeqi kartaa kalsoonida shacabka. waxyaabaha ugu waaweyn ee kale ee ka dhalan kara waa amni xumada. haddii xasilooni daradu ay sii kororto waxaa dhici kara dibadbaxyo iyo sidoo kale waxyaabo kale oo rabshado ah, kuwaasi oo sababa khasaare nafeed iyo sidoo kale mid maalba, waxaana arrimahaasi oo dhan ay noqdaan kuwo hoos u dhiga dhacdooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee jira. waxyaabaha kale ee sida weyn markaasi loo hadalhayo waxaa ka mid a maalgashiga caalamka ama sidoo kale dadaalada kale inay noqdaan kuwo istaagi kara, maadaama inta badan ay ku xiran yihiin ganacsatadu inta ay saameyn karaan ama sidoo kale xaaladaha kale ee jira. waxyaabaha kale ee sida weyn sare ugu kici kara waa shaqo la'aanta iyo sidoo kale sicir barar baahsan. dhibaatooyinka bulshada. khilaafaadku inta badan waxay hareeyaan bulshada, waxayna markaasi sababaan in bulshadu ay noqoto mid quus ka taagan xaaladaha guud ee ka jira dalkooda, waxaana ay noqotaa mid aysan aamini karin waxyaabaha guud ee dhici kara. mararka qaarkood adeegyada bulshada ay u baahan yihiin ee muhiimka ah sida waxbarashada, caafimaadka, horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ayaa waxay noqdaan kuwo gaabis uu ku yimaado. tallaabooyinkaasi waxay noqdaan kuwo saameyn xoogan ku yeelan kara dadaalada iyo sidoo kale waxyaabaha sida weyn la isugu hayo. xasilooni darro, amni xumo iyo sidoo kale bulshada oo arrimahaasi quus ka taagta waa waxyaabaha ugu waaweyn ee haatan ka jira Soomaaliya. dhibaatooyinkaasi isbiirsaday oo dhan waxay dhammaantood ku soo laabanayaan bulshada waan ogeyn halka loo socdo. khilaafaadka u dhexeeya dowladda iyo sidoo kale xubnaha kale ee mucaaradka dhammaantood waxay yihiin kuwo si weyn markaasi isugu haysta hanaanka doorashooyinka iyo sidii halka la aadi lahaa, laakiin arrimahaasi oo dhan kama turjumayaan dhibaatooyinka iyo sidoo kale waxyaabaha ay dadka shacabka ay marayaan. dibadbaxyada xoogan iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee jira waxay muujinayaan waxyaabaha ugu waaweyn ee dadka ay si weyn markaasi uga hor imaadaan xaaladaha guud ee dhacaya. mararka qaarkood ee khilaafyada siyaasadeed ay yimaadaan waxaa dhacda in doorka beesha caalamka uu noqdo mid sare u kaca. miiska ayaa laysku garaaca oo waxaa timaada in tallaabooyin adag dhinacyada la saaro. hadallada qaarkood waxay noqdaan kuwo si weyn markaasi u muujiya khilaafaadka ama sidoo kale tallaabooyinkaasi waxay noqon karaan kuwo si weyn isu haysta. inta badan dhexdhexaadintu waxay noqotaa mid aan samir iyo sidoo kale dulqaad la isku yeelan karin. mararka qaarkood dowladdu waxa ay samayn kartaa tallaabooyin kuwaas oo wiiqi kara wadahadallada. ilaa iyo hadda dhowr weji oo kala duwan oo wadahadallo ah oo ka dhacay xindaabka Xalane dhammaantood waxay noqdeen kuwo ku soo dhammaaday natiijo la'aan, waxaana xaaladahaasi sidoo kale waxyaabaha ugu badan ay muujinayaan dhibaatooyinka ugu waaweyn ee haatan jira. khilaafaadka baahsan iyo sidoo kale waxyaabaha muuqda waa mid ka mid a waxyaabaha ugu waaweyn ee jira. doorka beesha caalamka. dhexdhexaadinta iyo wadahadallada ururada beesha caalamka ama sidoo kale dowladaha saaxiibada ah waxay noqon karaan kuwo dhiirigelin kara wadahadallada si loo xaliyo khilaafaadka loona gaaro nabad waarta iyo sidoo kale waxyaabo ka duwan waxyaabaha la filayo. laakiin mararka qaarkood markay xaaladdu cakiranto oo dhibaatooyinku ay bataan waxay qaadaan tallaabooyin adag. baaqyada koowaad ee ugu horeeya waxay noqdaan kuwo diblomaasiyadeed. waxay ku baaqi karaan dhinacyada inay ilaaliyaan sharciyada, dastuurka, nabadda iyo sidoo kale kana fogaadaan wax kasta oo rabshado keeni kara ama sidoo kale taageeri kara farsamo. waxyaabo kale waxay inta badan sameeyaan taageero farsamo, kuwaasi waxay muujin karaan in la taageero waxyaabaha ku saabsan doorashooyinka, dib u heshiisiinta iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee hay'adaha dowladda, iyagoo markaasi kormeeraya warbixino joogtaana ka helaya hay'adaha caalamiga. waxay diri karaan kormeero kala duwan kuwaasi oo muujinaya xaaladaha guud ee taagan. laakiin marka xaaladdu ay noqoto mid aan mararka qaarkood laysku fahmin waxay qaadaan tallaabooyin kale. xaaladaha qaarkood ee nabadeed ama sidoo kale dhacdooyinku waxay noqdaan kuwo muujiya xadgudub ama sidoo kale xaalado kale. dadaaladaasi waxay ururada caalamigu ay qaadi karaan tallaabooyin diblomaasiyadeed oo aad u adag, iyagoo markaasi
xubnaha dowladda iyo sidoo kale dadka loo taagwaayo markaasi lagu sameeyo cunaqabateyno ama sidoo kale shakhsiyaad iyo hay-ado kuwaasi oo wajahaya dadaallo iyo sidoo kale waxyaabo kale, waxaana dhammaantood dadkaasi ay ku eedaysmaan xaalado iyo sidoo kale waxyaabo mararka qaarkood ay go'aanadu tahay kuwo gunaanada. khilaafaadka dowladda iyo mucaaradku mar walbaahi waxay noqdaan kuwo saameyntooda wata, waxaana dhibaatada ugu weyn ka xambaara dadka shacabka ah. mararka qaarkood waxaa yimaada isku dhacyo, dhibaatooyin iyo sidoo kale waxyaabo kale, waxaana dhibaatooyinkaasi oo dhan dhammaantood ay muujiyaan xaaladaha guud inay yihiin kuwo aan la saadaali karin. si walba ha ahaatee, dhibaatooyinkaasi sidoo kale qorshe xumada waxaa mar walba muuqata in dhinacyadu ay si weyn isugu diidaan. dowladda iyo mucaaradka madaladii kala duwanaa ee lasoo maray dhammaantood waxay ahaayeen kuwo muujinayay in mar walba dhinacay u raran tahay, laakiin wakiilada beesha caalamku kama aysan daalaynin mar walba in dhinacyada Soomaalida loo sheego dadaalo badan iyo sidoo kale qorshayaal lagu xalinayo arrintaasi. saddexda shakhsi ee ugu waaweyn wadahadallada Soomaaliya, xasan sheekh maxamuud, shariif sheekh axmed iyo sidoo kale maxamed cabdulaahi farmaajo, waxaa loo arkaa saddexda madaxweyne ee mustaqbalka Soomaaliya u jihayn kara markaasi in saddex xisbi qarameed dalku uu yeesho, laakiin waxay tahay kuwo la isku fahmi laayahay. mid walba oo ka mid a hadda waxa uu moodaa doorka beesha caalamku inay isaga la jirto, laakiin waxaa muuqata in dhinacyadu si weyn markaasi isugu diidan yihiin marxaladaha qaarkood ee taagan. dhan walbay ahaato iyo sidoo kale xaalad kasta waxay muujinaysaa tallaabooyin aan marnaba lagu xisaabtami karin. waxaa muuqata in xaaladaha qaarkood ay noqon karaan kuwo maalinba maalinta ka dambeysa marxaladooda ay noqonayso kuwo sii kacaya, laakiin khilaafaadka dowladda iyo sidoo kale mucaaradka ma ahan mid lasoo koobi karo. sida la isku diidan yahay tanaasul la'aanta dowladda laga rabay inay iyadu noqoto midda tanaasulka muujisa waa waxa keliya ee sababay wixii ka dhacay muqdisho oo mar kale dagaal ka dhaco waxay noqon kartaa tallaabo kale oo wiiqda dowladnimada. waxaa hadda jirta sicir barar baahsan iyo sidoo kale dhibaatooyin kale. waxaa dib u dhacay mushaaraadkii dowladda iyo sidoo kale shaqaalaheeda. xarumo qaarkood waxaa ku dhacay koronto la'aan, sida qaarkood ay wasaarada ku jiraan sida ay nagu soo gaarayaan xogaha. laakiin xaaladaha guud ee muuqda dhammaantood uma muuqato kuwa xukunka jooga. mid walba waxaad moodaa inuu kursiga si aad ugu dhagan yahay, sidoo kalena dhibaatooyinka dadka shacabkaa soo gaaraya ma jirta cid u turaysa. mar walba Soomaaliya waxa ugu waaweyn ay ku taagan tahay waa xaaladda muuqata iyo sidoo kale dadaalada ay muujinayaan dhinacyada. si walba la iskuma haysto xaaladaha guud ee taagan, laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin hanaanka iyo sidoo kale qorshihii loo mari lahaa. dowladda iyo sidoo kale xubnaha mucaaradku mid kasta oo ka mid a dadaalkiisu waxa uu muujinayaa in uu yahay midka asagu uu ku kalsoon yahay, laakiin ma muuqdo mid fakarka qofka kale uu ku tixgelinaya ama sidoo kale uu la muuqdo mid wanaagsan. dowladdu waxa ay sheegataa waxqabad, mucaaradkuna waxay leeyihiin dowladda waxqabadkeedii waxaa hareeyey musuqmaasuqa iyo sidoo kale waxyaabaha kala duwan ee ka jira hay'adaha kala duwan ee dowladda. laakiin haddana sidaasi ay tahay, waxyaabaha ugu waaweyn ee la isku hayo ayaa qayb ka ah xaaladaha guud ee jira. si walba ha ahaatee, Soomaaliya waxay wajahaysaa khilaaf hor leh, waxaana mar walba lama huraan ah in dadku ay gacanta ka wada hadli karaan, mar walbana la dagaalami karo, taasi oo muujinaysa xaalad kale oo saameynteeda wadata. si walba ha ahaatee, Soomaaliya lama oga halka uu ku salaysnaan doono khilaafaadka u dhexeeya dhinacyada.